waxaad arkaysaa dad badan oo wanaag badan kuu sameynaya oo yani waxyaalo badan kuu sameynaya balse ugu dambeyn noloshaada dhan baabi'inaya. haddii aan tusaale ahaan usoo qaadano dhanka iyo xiriirka jacaylka, waxaad arkaysaa wiilka inuu dhahayo gabadhan is jecelnahay kalsooni aan ku qabaa, yani waan aaminsanahay yani inay jeceshahay. sidoo kale waxaa laga yaabaa gabadha inay dhahdo wiilkan aad ayaan u jecelahay, isna wuu i jecel yahay, yani waan ku kalsoonahay, isna wuu i kalsoon yahay. maxaa yidhahdaa kalsoonida xitaa inay gaarsiiso xitaa heer ay dhahdo nafsadeeda ayaan kaga kalsooni badannahay. kalsoonida xaddaafka badan runtii waxay kugu ridaysaa waxay tahay god xun. bal fiiri, xitaa maanta labada qofood isqaba maxaa yidhahdaa oo reerka yani wada dhisan, waxaa laga yaabaa inaysan kalsooni aysan jirin. waxaad arkaysaa xaaska in maanta ninka qaba maanta dhan telefonkiisa ay barbaarayso, oo maanta dhan yani ay raadinayso, su-aal badan ay weydiinayso, ay dhahayso maanta maxaa jiro, is carfinaysaa, waa isqurxinaysaa, yani maanta waa libisanta, halkee loo socdaa, maanta kuma bogin looyaha. marka waxyaalahaas kale dhahdo, xitaa waxaa laga yaabaa haweenada qaran kuu soo daaya dhahdo adiga maanta maxaa jira, yani maanta halkee kusoo dahday. yani taasi yani kuma tilmaami karo way ku kalsoon tahay, yani kalsooni kuma tilmaami karo. bal fiiri, maanta sokorta iyo cusbada muuqaalkooda waa isku mid, balse waxay ku kala duwan yihiin waxay tahay waa dhadhanka. dadkana waa sidaas oo kaleeto, weligaa qofna ha ku kalsoonaan oo yani kalsooni badan ha siisan. maanta ka waran anigoo sida quraarad yar, quraaradaas yani anoo sikadiisa iga dhacdo, bal ka waran dhulka marka iga dhacda kadibna haddii aan dhaha ka waran yani quraaradan waxaa rabaa inaan isku toosiyo ama sideedii hore inaan ku soo celiyo, ma laga yaaba sidii hore inaan ku soo ceshmato? jawaabtu waa may. kalsoonidan waa sidaas oo kaleeto. السلام عليكم. muuqaalku wuu dhammaadna.